Bulshada Xeraale ee gobolka Galgaduud ayaa hub gaadiid dagaal iyo ciidamo ay si gaar ah gacanta ugu hayeen ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo shalay socdaal shaqo ku tagay Xeraale. Bulshada Xeraale ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre u sheegay inay hubka gaadiidka iyo ciidanka ay u wareejinayaan si ay qayb uga qaataan nabadeynta iyo horumarka deegaanka. Waxa ayna dowladda Soomaaliya ka codsadeen inay ammaanka deegaanka iyadu la wareegto. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo bulshada ugu mahadceliyay go'aanka geesinimada leh oo ku dayashada mudan qaybna ka qaadanaya qorshaha dib u heshiisiinta nabadgelyada iyo is-aaminaadda ayaa sheegay in sugidda amniga Xeraale ay dowladdu damaanad qaadayso. Mudane Xasan Cali Khayre ayaa amar ku bixiyay in taliyaha ciidanka xoogga dalka uu si dhaqso ah ku gaaro Xeraale uuna hubka iyo gaadiidka si rasmi ah ula wareego ciidankana uu geeyo xeryaha tababarka si ay ugu qaataan tababar looguna biiriyo ciidanka xoogga dalka ee ummadda Soomaaliyeed cadawga ka difaacaya. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa munaasabadda wareejinta hubka gaadiidka dagaalka iyo ciidanka ka sheegay in hub uusan gacan shacab ku jiri karaynin, sidaa darteedna cid waliba oo hub gacanta ku haysa laga doonayo inay ku wareejiso dowladda. Waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo inay nagu soo wareejiyeen baabuurtaas ciidamada ah oo gaashaaman oo ilaa beebayaashu ay ku jiraan oo qoryo saaran yihiin oo ay yiraahdeen waxaan u soo milkiyeynay dowladda Soomaaliyeed iyaga iyo ciidankii saarnaaba. Dowladda Soomaaliyeedna ay ka gudoontay halkan on faraayo taliyaha xoogga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diro dad una yimaado gawaaridan. Sidoo kale ciidanka halkan jooga in la qarameeyo, la diiwaan geliyo, tababarkii u baahan yihiin la siiyo. Magaaladan amnigeeda ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kala duwan ay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan. Amaanadan waxaa idin imaan doona wafdi ka socda taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed inta uu ka imaanayaan waa ku simaysan. Laakiin halkan waxaan rabaa inaan fariin uga diro shacabka Soomaaliyeed aan iraahdo waxa meeshan ka muuqda maanta waa tusaale ah dowladnimadii Soomaaliyeed oo hana qaaday, tusaale mudan in tallaabada walaalahay reer Xeraale ay qaadeen lagu daydo. Dowladduna ay ballan qaado inay dadka reer Xeraale oo soo hibeeyay hubkii ay haysteen dowladdu ay amnigooda ka shaqeyso. Dhanka kale waxaa madasha hubkaasi lagu wareejinayay ka hadlay mas'uuliyiinta Xeraale. Gaadiidkan iyo ciidankii saarnaa waa 12 gaari oo noocyada kala gedisan oo hubka wata. gaadiid fara badan oo aan qaran ma ahan munaasabana leh. Waxaan galabtay munaasabadan gaadiidkan iyo ciidan 500 askari ah ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed. waxaan ku wareejinaynaa wasiirada dawladda, waxaan ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha, waxaan codsanaynaa amnigayaga iyo xifdigayaga iyo wanaagayaga iyo nabadayada in dawladdu la wareegto. Ugu dambeyn waxaa ka hadlay Senator Abuukar Maxamed Xaashi. aad iyo aad u qiimo badan waa farxad in ra'iisul wasaaraha waddanka iyo wasiiradiisii iyo ciidankiisii oo isla socdo in nagu soo booqdaan magaalada Xeraale. haddana waxaa farxad kale tahay macnaha dowladnimada haddii aan fahamsanahay in aan waxeenni oo dhan aanu gacanta u gelinay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa amniga iyo ragga kale oo la wada socdo. taasna farxad kale ay noo tahay. waxa kaliya aanu sheegaynaa waxay tahay aanu codsanaynaa mar kale ra'iisul wasaare ilaah ka sokow adiga iyo dowladdaada ayaa mas'uul ka ah ammaanka waddanka kan adaanu ku dhiibnay. Hubka gaadiidka dagaal iyo ciidamada ay dowladdu kala wareegtay reer Xeraale ayaa qayb ka ah barnaamijka dowladda ay wado ee dib u habeynta ciidamada qalabka sida. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Som News TV, Muqdisho.